jenaraal ee ugu da'da yaraa ee soo mara ciidanka xoogga dalka Soomaaliya haddiiba uusan ahayn kan ugu da'da yar. dad kala duwan oo aan la hadlay aqoonna u leh waxay sanadka uu dhashay ku sheegeen 1987 waxaa la aaminsan yahay inuu ciidanka ku soo biiray sanadkii 2005 ka hor intii aan dhowaan la magacaabin waxa uu hormood ka ahaa gulufkii ciidamada dawladda ee danab iyo kuwa kale rigliga ah ay ka galeen gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan dagaaladii lagu qabsaday Sabiid Caanoole Bariire iyo Awdheegle 14 bishan August waxaa weerar rogaal celis ah al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dawladda ee Awdheegle iyagoo adeegsanaya 2 baabuur oo qaraxyo ah iyo maleeshiyaad hubaysan xilliga la soo weeraray oo barqa ahayd waxaa saldhigga ku sugnaa Generaal Odawaay Yuusuf Raage oo xilligaasi ahaa taliyaha ciidamada dhulka waxaa la sheegay inuu maalintaas ka qayb galay dagaalka isla markaana hogaamintiisu ay qayb weyn ka qaadatay in ciidanka dawladdu ay iska difaacaan weerarka al-shabaab Maxamed Abuukar Aweys Maxamed Yarow waa gudoomiyaha degmada Awdheegle waxa uu maalinta dagaalkaasi ku sugnaa saldhigga ciidamada dawladda ee Awdheegle shakhsiyan ayaa qorgiisa u qaatay ciidamada oo meesha joogay oo dhan garabkiisa ay ahaayeen dhawaadanii waa jawaabtii ay sugayeen in baa la siiyey dagaalku markuu dhammaadayna hadda baan kuu sheegi maayaa 7 askari dhaawac iyo 4 oo ciidanka Soomaalida ka dhinteen weli mid ka mid ah markaas anigu istaafiya iyo askari oo aad ogaanaysaa 5 askari maantaas meesha ku geeyay Mawliid Axmed Xasan waa afayeenka ciidamada danab ee ka howlgala Shabeellada Hoose waxaan weydiiyay aqoonta uu leeyahay Generaal Odawaay Yuusuf Raage وأسأل إذن كان كده حين أو كده احتراء معركة إذن كيسا إذن كوجاملية فاتوين كان أسد وحويان فاتوين عن كفارة لهاي وكفارة يري هاي يو النظام اللبا برنامج جرب سعودة وإذن ماذا كده جار كوسا وبرن جنب وطبعا يكون جوابي لمركز معركة في ركنة إذا مثلا أو لحوج بالك الصومالية laakiin waa nin yar oo khibrad lahayn marka xilli adagna waa lagu jira miyaysan kula ahaynin waay aragnimo la'aantaas wax badan lagu weynay maya da'da iyo khibradda qofka maaragtay malahan iyo firfircoonida inkastoo Generaal Odawaay Yuusuf Raage uu ka qayb galay dagaaladii magaalada Muqdisho haddana waxaa xusid mudan inuu waxbarasho dhinaca militariga ah ku soo qaatay wadamada Uganda iyo Turkiga sanadkii 2007 ayaa dawladdii Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa u dirtay dalka Uganda isagoo galay kulliyadda ciidamada Kawawate ee bartamaha waddanka Uganda halkaas oo ku qaatay tababar asaasi ah iyo sida loo ilaaliyo madaxda sanadkii ku xigayna waxa uu ka mid ahaa 12 sargaal oo dib loogu celiyay dalka Uganda si ay u galaan dugsiga tababarka ee Bihanda Military Academy oo ku taala galbeedka Uganda waxaana uu ku soo qaatay tababarka taliyanimada ururka December 2009 waxaa la siiyay darajada xidigle waxaana siiyay madaxweynihii xilligaasi Sheekh Shariif Sheekh Axmed kadib markii uu galay dagaaladii Muqdisho looga saaray al-shabaabna waxa uu hogaaminayay 2 urur oo mid yahay technical midka kalena ciidanka lugta kuwaasi oo madaxtooyada ilaa bakaaraha ka dagaalamayay inkastoo ciidamadaasi uu korka ka haystay Generaal Cabdullaahi Cali Caanood sanadkii 2013 waxa uu qaatay darajada kabtanka iyadoo kadibna waxbarasho loogu diray dalka Turkiga waxaana uu galay kulliyadda National Defense University ee magaalada Istanbul halkaas oo sanadkii ugu horeeyay uu ku qaatay luqadaha 2014 ayuu dib ugu noqday kulliyaddaasi waxaana uu bartay istiraatiijiyada dagaalka iyo hogaaminta guutada waxaana Soomaaliya uu ku soo laabtay bishii Juulaay 2016 waxaa laga dhigay gaashaanle dhexe waxaana uu taliye horin ka ahaa ciidamada madaxtooyada bishii Janaayo 2018 waxa uu madaxweynaha Soomaaliya u raacay safarkii uu ku mariyay Puntland iyo gobolada dhexe ee Soomaaliya bishii Maarso 2018 waxaa dhacay khilaafkii u dhaxeeyay gudoomiyihii baarlamaanka ee xilligaasi Maxamed Cusmaan Jawaari iyo dawladda federaalka khilaafkaasi oo ugu dambeyn keenay in xilka laga qaado taliyihii ciidamada madaxtooyada Korneel Axmed Maxamed Afcaday waxaana lagu bedelay ku-xigeenkiisii gaashaanle dhexe Odawaay Yuusuf Raage bishii August 2018 waxaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaana laga dhigay taliye guuto bishii Maarso ee sanadkan ayaa mar kale laga bedelay xilkaasi waxaana laga dhigay taliyaha ciidamada dhulka ugu dambeynna 22 bishan ayaa Generaal Odawaay Yuusuf Raage waxaa loo magacaabay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya taliyaha uu xilka kala wareegay Generaal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaa ii sheegay inuu rajaynayo in Generaal Odawaay Yuusuf Raage uu helo waqti uu ku dhiso ciidanka madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka shaqada waan kula talinayo Odawaay Yuusuf Raage hal si time
la yidhahdo waxbaa qabataa wax ma qaban laakiin haddii mataqaanaa dhowr bilood kabacdi la bedelo haddii asagana wixii lagula xisaabtami lahaa meesha ma yaallo asna waxba qaban maayo haddii ciidanku uusan yeelan siyaasad dhab ah oo lagu og yahay oo ninka lala xisaabtamo la yidhahdo saaxiibu 2 sana joogto 3 sana joogto 4 sana joogto maxaa qabatay haddaysa imaan ciidankuna dhismi maayo wax badanna ma qabsoomayaan dallacsiinta degdega ah ee jenaraal Odawaye Yuusuf Raage iyo magacaabistiisa taliyanimo ayaa dad badan ay su'aalo iska weydiinayaan gaar ahaan dhinaca khibraddiisa waxaa kaloo khubarada militariga ay isweydiinayaan haddii uu ku wanaagsanaa hogaaminta dagaalka maxaa loogu dayn waayay inuu jagadaasi sii hayo xilligan oo dalku uu aad ugu baahan yahay hogaaminta ciidanka ee furimaha dagaalka su'aal kaloo la isweydiinaya ayaa ah intee in la-eg ayuu xilka sii hayn doonaa maadaama magacaabista taliyayaashu ay in badan isbeddeshay waxaa dhegaystayaal iga xusuusinah inaan xilliyo badan oo kala duwan isku dayey inaan waraysto jenaraal Odawaye Yuusuf Raage balse kama uusan soo jawaabin telefoonnada iyo codsiyadii qoraalka ahaa ee aan u diray